alxamdu lilaah rabi alcaalamiin wsala allahu calaa muxamedi wcala aali muxamed wasalama tasliiman kasiira waxaynu ku soo jiray kitaabkii xisnulmuslim waxaynu joognaa baabka 7 ducaau man khaafa dulma asultaan sheikhu wuxuu u baabaystay ka baqa ducadiisa dulma asultaan boqorku inuu dulmiyo ama nin madaxi inuu dulmiyo ka baqa wuxuu ku ducaysanayo xadiidka 129 adigu xadiis marfuuca ma aha waa ahar cabdullaahi ibn mascuud ayaa ducadan markaa sheegay laakiin nebiga sala allahu alayh wasalam kama soo warin yacnii iyadoo nebiga laga soo wariyey ma sugna ducadu waxay tahay allaahumma ilaahayow rabba asamaawaati asabci samooyinka 7 ah kii u rabbiga ahaayow wa rabba alcarshi alcadiim carshiga weynkii u saaxiibka ahaayow kun lii jaaran min fulaan ibni fulaan mid iga magangeliyey noqo hebel oo ina hebel ah yacnii kii madaxdee uu ka baqaayuu magacaabaya magiciisa iyo magaca aabbihii sheegaya ilaahu kaa iga magangeli wa axsaabihi yacnii guruubbadiisana iga magangeli oo bimacnaa ciidamadiisa iyo markaa cidda uu xukumo iga magangeli oo min khalaa'iqik oo khalqiyadaada ka mida an yafruta calaya axadun minhum aw yatgaa waxaad iga magan gelisaa min an yafruta calaya inuu igu degdego aniga korkayga axadun minhum cid yaga ka midi aw yatgaa ama igu xadgudbo ama igu qooqo ayaan kaa magan gelay iga magan geli bimacnaa dhib inay i gaadhsiiyaan ama cid ka midii ay igu kibirto ama ay dhibaato i gaadhsiisaan ilaahu kaa magangelayaa ee iga magangeli caza jaaruk caza waa xoogoobay oo casiis buu noqday jaaruka kii adiga ku magan galaa ama aad magangelisaa wajalla hanaa'uk waa weynaaday ammaantaada lagu ammaanayaana waa weynaatay oo ammaan weyn ayaad mudan tahay walaa ilaaha ilaa ant mid la caabuda xaq ma aha adiga mooyaane ilaahayow tawxiid buu ku khatimaa allah baanu u yeedhanayaa asarkan waa min qowli cabdullaahi ibn mascuud waxaa sheekha fiicnaan lahayd inuu kala caddeeyo waxyaalaha xadiis nebi ah oo nebigu sala allahu alayh wasalam uu yidhi iyo waxyaalaha qowl saxaabi ah siiqada iyo odhaahda markaa isku sibuu u qoray cala aqali hoosta inuu ku baraarujiyey ahayd waa mawquuf calaa cabdullahi ibn mascuud marka waxa weye aasaarta uu caddeeyo inay tahay qowl saxaabi si aan loo moodin xadiis nebi lafdigiisu wuxuu ahaa idaa takhawafa axadukum asultaana falyaqul hadduu midkiin ka baqo cid madaxa uu ka baqo ha yidhaahdo allaahumma rabba asamaawaati asabci ila aakhirihi ilaa intan inoo qoran saa loo dhammaynayo marka waa baryo allah la baryayo weye waxaa soo wariyey bukhaari ayaa ku soo wariyey fi ladab almufrad sheekh albaanina waa saxiixinaya laakiin waa mawquuf calaa cabdullaahi ibn mascuud ruuxii maadaama isagu daciif yahay oo aanu awood isagu lahayn ayuu wuxuu baryayaa cidda awoodda le buu baryayaa cid kastoo awood sheegatana oo makhluuqana ilaahay baa ka awood badan marka cidda uu ilaahay magangeliyaa cidina waxba yeeli mayso haddii ducadaa loo aqbalo ilaahay magangeliyo sharka ilaahay waa ka dabaalayaa waxna ma gaadhsiinayaan ducadii wuxuu ku khatimay ammaan hanaa ilaahay la ammaanaayo iyo tawxiid ilaahay la keliyeynayo caza jaaruka wajalla hanaa'uka wa ammaan walaa ilaaha ilaa antana waa tawxiid marka qabuulka ducada la aqbalayo waxaa ka qayb qaadanaya yacni hanaaga iyo tamjiidka iyo tawxiidka ammaanta ilaahay la ammaanaayo iyo waxidaadda ilaahay la keliyeynayo xadiiska 130 isna waaba ahare ka 130aad waxaa isaguna uu sheegayaa in sidaan lagu ducaysanayo in la yidhahdo allahu akbar ilaahay baa wax walba ka weyn allahu akbar ilaahay baa wax walba ka weyn allahu acazu min khalqihi jamiica ilaahay waa ka cizo badan yahay waa ka xoog badan yahay waa ka awood badan yahay min khalqihi khalqigiisa waa ka awood badan yahay jamiican xaalay dhammaantood yihiin allahu acazu mima akhaafu axdar khalqigu si kastay awood u sheegtaan awooddoodu waa daciifa si kastoo yacni markaa isu yidhahdaan awood baa leedihiin
iminka dawladihii waaweynaa ee awoodda sheegan jiray iyo aqoonta waxay ka qaylinayaan yacni fayras yar oo isha aan lagu arkayn xataa kuwii shuuciyadda ahaa ee lahaa markaa waxa weeye waxaannu aragna mooye wax kale ma jiraan waxayna isha caadigaa ku arkayn bay ka baqayaan yacni baqashada iyo halaca iyo cabsida ka jirta aad iyo aad bay u darantay marka waxay ku tusinaysaa dacfiga bini aadamka fayras yar oo aan la arkaynin oo weynayso ilaa aad iyo aad wax fara badan la weyneeyo mooye aan ishu qabanayn ya xataa weynaysada caadiga aan lagu arkayn marka hore ilaa aad loo weyneeyo ayaa markaa waxa laga wada baqaya argagax caalamkii ku keenay taasi waxay caddaynaysaa dacfiga aadamiga ay caddaynaysaa allahu acazu mima akhaafu axdar allahu ilaahay acazu waa ka cizo badan yahay mima akhaafu waxaan ka baqayo wa axdaru aan ka digtoonay bacdu ahlicilmi waa diidaan tafdiil in loo laqbeeyo oo waxay yidhaahdaan waa in la yidhaahdaa ismu tafdiili huna laysa calaa baabi wasfi mujarad alwasfi waa in laga dhigaa waa in la yidhaahdaa rabbi baa cizo leh ashyaadan kale cizo male yacni saasoo kale markaa loo laqbeeyo la yidhahdo yacni saas baa culamo badani markaa ay yidhaahdaan waayo waxay yidhaahdeen isbarbardhigga marka hore inta la isbarbardhigo la kala fadilayo ayaa waxaan isu dhigmin see loo kala fadili karaa labada shay la kala fadilayaa waa inay wadaagaan waxa lagu kala fadilayo waxa lagu kala sarraysiinayo waa inay markaa labaduba wadaagaan haddii la yidhaahdo masalan fulaanun aclamu min fulaan hebel waa ka cilmi badan yahay siiqada caynkaasa miyaa la odhan karaa mid caalim ah oo marka waxa weeye cilmi badan iyo mid jaahilaan xabbad aqoon inta la isbarbardhigo miyaa la odhan karaa fulaanun aclamu min fulaan hebel waa ka cilmi badan yahay ya waxaa loo qaadan karaa inaad xaqirayso hebel taajir xoolo badan miskiinka dawarsanaya miyaa laga fadili karaa oo la odhan karaa taajirka caynkaasi ka dawarsanaya waa dhaamaa wuu ka xoolo badan yahay ka dawarsanaya yani waxaa loo qaadan karaa ayay yidhaahdeen taxqiir maxaad hebel ugu soo celisaa la odhanaya ya waayo mushaarakadii baan marka hore jirin saas aawadeed waa inaan tafdiil loo laqbayn bay yidhahdeen la yidhaahdaa allahu acazu mima akhaaf iyo allahu akbaru min kulli shay waa in markaa la yidhaahdaa marka ayna la socon inta kale waaba sahal bay yidhaahdeenoo allahu akbar bimacnaa allahu kabiir baa lagu fasiraya bay yidhahdeen marka kalena yacni waxay noqonaysaa ilaahay baa cizo leh oo ka cizo leh mima akhaafu yacni waxaan ka baqaya iyagu cizo ma leh iyagu quwo iyo awood ma leh ida anta fadalta imra'an daa baraacatin calaa naaqisin kaana almadixu min anaqsi acuudu billaahi aladii laa ilaaha ilaa huu acuudu waxaan magan galay billaahi ilaahay baan magan galay ilaahaasoo alladii kaasoo laa ilaaha ilaa huu mid la caabuda aanu xaq ahayn isaga mooyaane almumsiki asamaawaati asabci an yaqacna cala alardi ila biidnih waxay sifo ka tahay billaahi bay sifo ka tahay haddii almumsiku loo dabdiyo waxay noqonaysaa in markaa la yidhaahdo huwa ayay beddel ka tahay ama mubtadaa loo qadaraya huwa almumsiku almumsiki allahaasoo almumsiki haya alsamaawaati asabci samooyinka toddobada ah haya an yaqacna cala alardi ila biidnih samooyinka toddobada ah ka haya inay ku soo dhacaan dhulka xaal axwaasha ka mida xaalay idanka ilaahay iyo oggolaanshaha ilaahay ku lamaan yihiin mooyaane xaalad kale inay ku soo dhacaan ka haya min sharri cabdika fulaan waxaan kaa magan gelayaa addoonkaaga hebel ah sharkiisaan kaa magan gelaya waa ninkii madaxdee uu ka baqayey ayuu magacaabayaa markaasuu odhanayaa min sharri magicii intuu sheego min sharri cabdika fulaan fulaankaasuu ku beddelayaa magicii wa junuudihi iyo ciidamadiisaan kaa magan gelayaa sharka ciidamadiisi wa atbaacihi iyo cidda isaga daba joogta ee raacaysa ee ateecaysa sharkoodaan kaa magan gelayaa wa ashyaacihi waxay la macno tahay atbaacda waa mutaraadifaan waa ashyaacu shakhsi wa atbaacuh shakhsiga ashyaacdiisu waa atbaacdiisa weeye waa shiicatun shiyac ashyaac wa jamcu jamcin shiicada waxaa la yidhaahdaa qola ayaa la yidhahdaa cidda marka waxa weye shakhsi raacaysa waxa la yidhahda waa shiicadiisi shiicna waa lagu jamciyaa
shiyacna ashyaac baa lagu sii jamciya waa jamcu jamcin min aljinni waalins xaalay jinkiiyo insigaba ka mid yihiin ayaan sharkooda kaa magan gelaya allaahumma kun lii jaaran min sharrihim ilaahu waxaad ahaataa mid iga magan geliya sharkooda jalla hanaa'uka wa cazza jaaruk jalla waa weynaaday hanaa'uka ammaantaadaa weynaatay oo ammaan weyn baad mudan tahay wa cazza jaaruk ka adiga ku magan gala ayaa xoogoobay ama ka adigu aad magan geliso ayaa xoogoobay oo quwo iyo xoog yeeshay wa tabaaraka smuk waxaa barakoobay oo khayrkiisu batay magacaaga walaa ilaaha hayruk ay laa macbuuda xaqun mid la caabudaa xaq ma aha hayruka adiga mooyaane waxay la mid tahay hayruka ila allah bay la mid tahay laa ilaaha mid la caabudaa xaqun xaq ma aha hayruka adiga mooyaane cid kaloo la caabudo xaq ahi ma jirto 3 maraat sidaa wuxuu ku celcelinayaa 3 goor ayuu sidaa odhanaya 3 goor buu saa odhanaya asarkani waa min qowli cabdillaahi ibni cabbaas xadiis marfuuca isagoo ah oo nebiga loo rafcinayo ma sugna laakiin waxa weeye waa duco uu sheegay cabdullaahi ibnu cabbaas markaa uu sheegay weeye uuna yidhi idaa atayta sulطaanan mahiiban takhaafu an yastuwa bika faqul allaahu akbar cabdullahi ibnu cabbaas baa odhanaya marka waa mawquuf marfuuc maaha hadalkii nebiga ma ahee saxaabiga cabdullahi ibnu cabbaas baa sidan yidhi uu yidhi sidan ku ducayse markaa sheikhu inuu caddeeyaa fiicnaan lahayd oo uu sheego si aan xadiis nebi loo moodin inuu qowl saxaabi yahay uu sidaa sheego wuxuu yidhi idaa atayta sulطaanan mahiiban haddaad u tagto ama aad doonto inaad u tagto nin madaxa oo laga baqaayo oo takhaafu an yastuwa bik aad ka baqayso inuu ku qabto oo bimacnaa waxa weeye cuquubo kugu sameeyo ama dhib faqul waxaad tidhahdaa allaahu akbar dabeedna ducadaas ayuu akhriyey waxaa soo wariyey bukhaari fi aladab almufrad sheekh albaanina waa saxiixiyey laakiin wuxuu sugnaaday isagoo min qowli cabdullahi bni cabbaas ah waa la soo wariyey isagoo marfuuca laakiin marfuuc ma sugna waa daciif mawquufnimadu ku asaxay waxaa laga qaadanayaa in ilaahay la baryo ruuxu markuu ka baqo cid markaa dulmigooda iyo dhibaatadooda in ilaahay magan galo ilaahayna markaa uu ilaahay baryo oo qalbiga isagoo soo xaadirinaya ayuu ducadaas akhrinayaa waxaanu asarku sheegaya inuu 3 goor ku celinayo ayuu markaa sheegaya marka kun lii jaaran macnuhu wuxuu noqonayaa midii magan geliyo ilaaliyo yacni ahaw ayuu markaa macnuhu u dhacayaa tabaaraka smuk magacaagaa barakoobay waxaa loo jeedaa khayraadkiisa ayaa farabatay ayaa laga tilmaamaya magaca ilaahay waa mubaarak marka wax la gowracayo waa lagu xusayaa markaasaa xusidda lagu xusaayo xalaal ku noqonaya waa barakada magaca ilaahay barakaysan yihi haddaan magaca ilaahay lagu gowricina magac kale lagu gowracana wuxuu noqonayaa khabiis mid xun oo xaaraan ah ayuu noqonaya haddii magaca ilaahay lagu gowracana wuxuu noqonayaa mid waxa weye mubaaraka oo xalaal ah oo tayiba buu noqonaya markaasaa midna waa tayib midna waa khabiis oo tayib ku noqday ka magaca ilaahay lagu gowracayaa barakada magaca ilaahay ayuu ku noqonaya wax kastoo wanaagsan oo la samaynaayo magaca ilaahay baa lagu bilaabaya magaca ilaahay ayaa lagu bilaabaya haddii wax la cunayo haddii wax la cabbayo haddii wax la dhisayo haddii wax la qorayo haddii yacni waxa weeye galmo la samaynayo shayga markaa lagu bilaabana wuxuu noqonayaa shay markaa mubaaraka ayuu noqonaya shaytaankii sharkiisii waa ka fogaanaya waxa magaca ilaahay lagu xuso ya haddii kaleo marka aanu magaca ilaahay ku xusinna shaytaankaa la wadaagaya shaytaanka ayaa la wadaagaya waxaa lagu khatimay tawxiid baa lagu khatimay laa ilaaha hayruk mid la caabudaa xaq ma aha adiga mooyaane adigoo quraa xaq ah waxaad arkaysaa ducooyinkii kurbada lagu ducaysanayey iyo ducooyinka marka waxa laga baqaayo yacni madax markaa dulmida iyo wax la mida ama dhibaato ku samaysa laga baqayo waxaa lagu khatimaya tawxiid baa lagu khatimaya macnuu wuxuu noqonayaa awood adiguunbaa leh cid kaloo awood lihi ma jirto cid kaloo dhibaatada iga faydi kartaana ma jirto baabka 38 adducaa'u cala alcaduw ducada la habaaro cadowga xadiiska 131 cadowga waxaa lagu habaarayaa allaahumma ilaahayow munzila alkitaab kii kitaabka soo dejiyeyow
sariica alxisaab ka xisaabtiisu degdega badan tahayow ihzim alaxzaab jebi guruubbada markaa jebi yacni guruubbada gaalada iyo qaybaha gaalada iyo ururada gaalada ilaahayow jebi allaahumma ilaahayow ihzimhum jebi oo qaar jabay oo aan nasri helin ka yeel wazalzilhum ilaahow gilgil oo waxa weeye arlada la rux yacni si marka waxa weeye shadiida yacni u rux xadiiskani waa min xadiisi cabdullaahi bni abi awfa saxaabiga cabdullaahi bni abi awfa la yidhaahdo ayaa soo werinaya waxaanuu yidhi dacaa rasuulu llaahi sala allahu alayh wasalam cala alaxzaab nebigu wuxuu habaaray calayhi asalaatu wasalaam gaashaanburihii gaalada isa soo kaalmaystay ee isa soo guruubaystay ghaswat alkhandaq ayuu guruubbada habaaray oo faqaal allaahumma munzila alkitaabi sariica alxisaab ihzim alaxzaab allaahumma ahzimhum wazalzilhum yacni waxaa weeye ilaahay buu magacyadiisa ugu yeedhay allaahumma yaa allahu bay la macno tahay munzila alkitaab sariica alxisaab marka saddex magac oo ilaahay magacyadiisa ka mida allah iyo munzila alkitaab iyo sariica alxisaab saddex magac oo magacyada ilaahay ka mida ayuu allah ku baryayaa nebigu sala allahu aleyh wasalam dabeed wuxuu ku habaaray ihzim alaxzaab yacni guruubbada jebi mu odhan nebigu sala allahu aleyh wasalam ilaahow wada dil oo markaa waxa weeye marka xabad ha ka reebin nebigu kuma ducayn rabbi laa tadar cala alardi min alkaafiriina dayaara ducadii nebi nuux ku duceeyo kale kuma ducayn sababtu waxay tahay nebi nuux isagu wuxuu ogaa oo loo sheegay cid dambe oo rumayn doontaa inaynay jirin iimaankoodiina waa ka quustay waxyiina waa loogu sheegay inaan cid dambe ka islaami doonin xataa kuway dhali doonaanee dambe inaynay islaami doonin baa loo sheegay wa wuxiya ilaa nuuxin annahu lan yu'mina min qawmika ilaa man qad aaman intaa hore kuu rumaysay mooye cid dambe oo ku rumayn doontaa ma jirto maadaama loo sheegay inaan cid dambe rumayn doonin sababtaasuu u habaaray laakiin maadaama nebi maxamed calayhi salaatu wasalaam aan loo sheegin inaan cid dambe rumayn doonin ee uu rajaynaayey inay cidi ka islaamto kuwa gaaladee nool iyo inay muslimiin dhalaan mid walba oo kuway dhalaan qaarkood ay islaamaan uu rajaynayey nebigu sala allahu aleyh wasalam inuu ilaahay wada halaago aanu xabad ka reebin marnaba kuma habaarin mar qura lagama soo naqlin duca caynkaas wuxuu ku habaari jiray inuu waxa weeye ilaahay jebiyo ama wuxuu habaari jiray afraad yacni markaa midhar gaalada ka mida oo dhibaato ziyaada alla timi inuu ilaahay qabto kuwaasina waxay ahaayeen yacni markaa qaar dhibaato ziyaada alla yimi oo odhan jiray marka waxa weeyaan yani calayka bifulaan wa fulaan wa fulaan hadda ma aragtaa maalintii daa'if dadkii wax magaratada ee reer daa'if markii lagu salliday oo ay shiideen oo nebiga ay dakhreen oo dakharku ku dhacay oo dhiigga marka waxa madaxiisu soo dareeray waa tii uu yimi nebiga sala allahu aleyh wasalam loo soo diray malakuljibaal malaggii buuraha loo soo diray markaasuu nebiga u yimi calayhi salaatu wasalaam markaasuu wuxu yidhi haddaad doonayso labada buurood baan ku masaxayaa may buu yidhi iska daa waxaan ka rajaynayaa ilaahay dhabarradooda inuu ka soo saaro qaar ilaahay keligii caabuda inuu ilaahay ka soo saaro dhabarradoodaan rajaynaya yacni saasaa nebigu yidhi sala allahu aleyh wasalam marka culammadu waxay yidhaahdeen gaalada si caama in la yidhahdo ilaahu wada rog oo xabad ha ka reebin sida ducadaa nebi nuux oo kale lagu duceeya waa qalad yacni mid saxa maaha nuuxu wuxuu ka ogaana innagu kamaynu ogin nuuxu wuxuu ka ogaa innagu kama ogin nebigu wuxuu ku habaari jiray in ilaahay jebiyo gaalada inuu ilaahay jebiyaana waa dantooda waayo haddii la jebiyo kibirkoodaa yaraanaya dembigoodaa yaraanaya waxaa laga yaabaa qaarkood inay dib isugu noqdaan inay ka baraarugaan marka xumaantay ku sugan yihiin oo fekeraan inay ka noqdaan marka gaalnimadooda xataa haddaynay ka noqon yacni markaa kibirkan iyo calanwallayntan iyo iswaalwaalkan iyo dembiyadan badan iyo xadgudubkan badan ayaa laga yaabaa inuu ka yaraado marka inay jabaan waaba dantooda jabkaasuu ugu ducayn jiray waa jirtaa saxaabi inuu ku habaaray allaahumma axsihim cadada waqtulhum bidada walaa tubqi minhum axada laakiin isaguna habaarkiisu ma ahayn saxaabigaas gaaladii quraysheedoo dhan miduu ku wada habaaraya ma ahayn kooxdii soo qabatay ee markii hore markaa u ballanqaaday inay badbaadinayso ee markii dambena ku ballan furtay kooxdaasay ahayd markaa cidduu habaarayay
saasaawada waa tii la yidhi sannadkii ma dhammaan oo wakhtigiisii lama gaadhin iyadoo kooxdii qof ka nool yahay waxay ku wada dhinteen sannadka gudihiisii allaahumma hazimhum wa zalzilhum marka sidaasuu nebigu ku habaaray sala allahu aleyh wasalam habaarkiina waa ku dhacay way jabeen nimankii markaa iyagoo kabna lulaya kabna laalaadinaya ayay markaa dib u noqdeen waxay doonayeenna aan gaadhin ghaswat alaxzaab sariica alxisaab laba macnay culammadu ku fasiraan waa ka xisaabtiisu degdega badantoo bimacnaa degdega ay u iman doonto bay waa mustaqbaliya waa soo socotaa wa kullu maa huwa aatin fahuwa qariib wax kastoo imanayaana waa dhow yahay macno labaadna waa lagu fasiraa sariicu alxisaab macnaha labaad waxay tahay xisaabtii markuu xisaabayo oo markaa doonaayo inuu xisaabo si degdeg u xisaabaa yani hadduu doono saacad buu ku xisaabaya khalaa'iqdoo dhan laa yashghaluhu sha'nun can sha'nin wa amrun can amrin arri kama mashquuliya hatii saxaabada qaar la weydiiyo la yidhi sidee khalqigan oo dhan ilaahay wakhti keliya u wada xisaabaya markaasuu wuxuu ku jawaabay iminkaba siduu u wada arsaaqayo oo arsaaqda qaarkood uu arsaaqayaa kuwa kale ayna ka mashquulinaynin ayuu dhammaantoodna wakhti keliya u wada xisaabaya baabka 39 maa yaquulu man khaafa qawman wuxuu odhanaya ayuu ku saabsan yahay ama muxuu odhanayaa man khaafa qawman kii qolo ka baqaa haddii qofku qolo ka baqo muxuu odhanayaa xadiiska 132 allaahumma kfiniihim bima shi't ilaahu iga kaafi oo sharkooda igaga dabaal bima shi'ta waxaad doonto ilaahu igaga kaafi alla waxaad doonto ilaahu sharkooda igaga kaafi xadiiska horeynu soo marray ee markaa sheegaya allaahumma munzil alkitaab waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim baa soo wariyey wuxuu u nisbeeyey sheekha kitaabka qoray inuu muslim soo wariyey marka bukhaarina waa soo wariyey marka halkaa qusuur baa ku jira yani lafdigan baa labadaba ku soo arooray fii saxiixi albukhaari iyo fii saxiixi muslim allaahumma kfiniihim bima shi'ta ilaahu iga kaafi waxaad doonto ilaahu iga kaafi oo sharkooda igaga dabaal xadiiska sidan sheegaya waa min xadiisi suhayb ibnu sinaan suhayb aruumi ayaa laga soo wariyey halkaa an yara tambiihiye suhayb ruum waa loo nisbeeyey laakiin asalkiisu wuxuu ahaa carabi buu ahaa ruumi ma ahayn ruumku waa qafaasheen dabeedna markaa waa addoonsadeen sidaasaa markaa ruumi loo yidhi wa ilaa wuxuu ahaa sida xadiis ku soo aroortay carabi buu ahaa xadiisku wuxuu sheegayaa xadiiskiibuu ku jiray qisadii wiilka iyo raahibka sheegaysa yacanii qiso nebigu sala allahu aleyh wasalam uu sheegay oo ka warramay ayaa waxaa ku jiray inan yar ayaa reerkoodii waxay ku yidhaahdeen ninka falalowgaa waa inaad u tagtaa maalin kasta waa inaad falkiiyo sixirka ka soo barataa inanka shaqadaasaa loo diray inankii yaraa markuu ku sii socdo falalowgii ayuu wuxuu sii maraa nin raahiba oo meel sawmacaa iskaga cibaadaysanaya cibaado intuu u go'o qol yar cibaado u dhista qolkaa yar buu cibaada ahaan iskaga cibaadaystaa inta aanu falalowga u tegin buu yaro dhegaystaayoo u tagaa markaa raahibkan ninka raahibkaabuu tagaa ninkii raahibkaa wax u sheegay inankii yaraa raahibkiina waa sii dhegaystaa maalin kasta marka dambena falalowgu u tagaa wuxuu ku yidhi markuu sidaas sameeyey ayuu dabeedna wuxuu yidhi ilaahayow yacni waxa weeye wuxuu ka baryey labada ka khayrka badan labada ka khayrka leh raahibka iyo falalowga in ilaahay garan siiyo marka dariiqii baa wax xidheen dabeedna markaasuu wuxuu yidhi ilaahayow haddaad raahibka ka jeceshahay falalowga yacni waxa weye bahashaa ku dil waxbuu saa ugu dhuftay wixii baa dhintay wixii laga baqayey ayaa dabeed dhintay inankii yaraa wuxuu fahmay inuu raahibkani ka wanaagsan yahay falalowga halkiiba raahibkii wuxuu ku yidhi ninkii caabidka ahaa ee iska cibaadaysanayey marna waxaa imaagaya falalowgii odhanaya xaggaad ku habsaantay marna reerkiibaa markaa waxuu imaagaya wuxuu ku yidhi ninkii caabidka ahaa haddii falalowgu ku yidhahda xaggaad ku habsaantayna waxaad tidhahdaa gurigii baan ku soo habsaamay iyo reerkii haddii waxa weeye reerku ay ku yidhahdaan xaggaad ku habsaantayna waxaad tidhahdaa falalowgii baan ku soo habsaamay anna marnaba hay sheegin dadka qaarkood baa waxay maqleen inanka yar sha'nigiis ayay maqleen yacanii wixii waddada xidhay inuu wax ku dhuftay dabeedna wixii markaysa markaa ay dhinteen dabeedna markaasaa la yidhi falkii durba meel khataru maraya si cajiibu wax u barta falkii baa loo malaynaya nin boqorka la fadhiisan jiray oo indhala ahaa ayaa maqlay inanka yar waxa laga sheegayo dabeedna inanka yaraa buu yimi
markaasuu yidhi de waxbaa taqaanaa baa la yidhi waxaan doonayaa markaa bal indhaha indhalaan baa i haysa indhihii wax fiican ka arki maayo markaasuu yidhi anigu awood malihi indhana ma bixin karo haddii ilaahay aad rumayso ilaahay baan kuu baryaya waan rumaynayaa buu yidhi yaa markaasaa dabeedna buu yidhi ilaahay baan rumeeyey ilaahay buu u baryey indhihii baa u baxay boqorkiibu wuxuu u tegey isagoo indho qabaa waryaa oo indhaad leedahay oo maxaa dhacay sodigii indhaha la'a markaasuu rabbigay baa indhahay siiyey markaasuu ma aniga rabbiga anaa ku siiyey markaasuu maya rabbigay iyo rabbigaaguba waa allah baa inoo rabbiya halkiibu dabeedna markaa waxa ninkii yidhi ilaaba ilaa meeshaad ka keentay waa inaad caddaysaa ninkii baa la ciqaabay inankii yaraa buu dees sheegay inankii yaraa baa la soo qabtay markii la soo qabtay ducadan inanka yar baa ku ducaystay allaahumma kfiniihim bimaa shi'it yaa mar waxa weeye waxaa loo dhiibaa koox ayaa loo dhiibaa markaasaa badda ku soo tuura yaa badda dhexdeeda markay geeyaan intayna ku ridin ayuu yidhahdaa allaahumma kfiniihim bimaa shi'it waxay saareen meetu gilgishaygu ka daastaan isagoo iska soconayaa soo noqda qolo kale haddana loo diraa allaahumma kfiniihim bimaa shi'it waa ducadii uu nebigu sheegay sala allahu alayh wasalam inanka yar inuu ku ducaystay uu nebigu sheegay calayhi salaatu wasalaam yacni saas weeye marka xadiiskaasay ku jirtay xadiiskana waxaa soo wariyey muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey 40 ducaa'u man asaabahu shakun fi liimaan kii ducadiisa uu haleelo shaki uu iimaanka ka shakinaya uu haleelo oo ku yimaado ducadu ku ducaysanayo xadiiska 133 yastaciidu billaah lafdigii xadiiska ma keenin ee macnihiisii buu keenay wuxuu magan gelayaa ilaahay yantahii camaa shakka fiih wuxuu ka waantoobayaa ka hadhayaa wuxuu ka shakiyey ayuu ka waantoobaya waxaan iska reebaya ka joogaya xadiiska sidan ku soo arooray waa min xadiisi abi hurayra waxaanuu sheegayey in nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ya'ti ashaytaanu axadakum fayaquulu man khalaqa kada wa kada xataa yaquula lahu man khalaqa rabbak shaytaanka midkiin waswaasinaya yacni waswaas buu ila imanaya markaasuu ka odhanayaa waxaan yaa abuuray kan yaa abuuray kan yaa abuuray siduu caynkaa u leeyihu marka dambe wuxuu odhanayaa man khalaqa rabbak rabbigaa yaa abuuray nebigaa sheegaya calayhi salaatu wasalaam faidaa balaga daalik hadduu halkaa gaadho falyastacid billaah ilaahay ha magan galo waliyantahi ha ka reebtoomo arrinkaa ha joojiyo xadiiska waxaa soo wariyey bukhaari iyo muslim ayaa soo wariyey xadiiska 134 yaquulu aamantu billaahi wa rusulih wuxuu odhanayaa waxaan rumeeyey ilaahay wa rusulih iyo rasuulladiisaan rumeeyey ilaahay iyo rasuulladiisaba waa rumeeyey ilaahay waxaa loo rumaynayaa inuu allah jiro inuu isagu yahay yacni khaaliq raasiq oo mudabbiro umuuraha maamulaya oo rubuubiyadu u sugan tahay inuu allah yahay mid cibaadada la gaara oo keligii isagu mutaystay keligii in la caabudo u xaq leh waxaa loo rumaynayaa asmaadiisa iyo sifaatkiisa inuu la gaar yahay 4 ashyaa arrinka koowaad waa inuu rumeeyo jiritaanka ilaahay arrinka labaad waa inuu rumeeyo afcaasha ilaahay oo rabbinimadiisa ah inuu ilaahay wax abuuro wax arsaaqo wax maamulayo wax mulkiyo wax deberayo makhluuqaadka isagu maamulayo deberayo hadday arsaaq tahay hadday noolayn tahay hadday diris tahay hadday cisayn tahay hadday dullayn tahay hadday koruqaad tahay hadday haniyeelis tahay hadday faqri ka yeeli kullu daalika waxay soo gelayaan tadbiirka maamulkay soo gelayaan min atadbiir shayga saddexaad waa in ilaahay loo rumeeyo istixqaaqa uu cibaadada isagu mutaystay oo keligii in la caabudo ay tahay cid in lala caabudaana aynay bannaanayn tawxiiduhu bilcibaada in cibaadada loo keliyeeyo shayga afraad waa in marka uu u rumeeyaa magacyadiisa wanaagga badan iyo sifaadkiisa korreeya ee wanaagsan waa inuu u rumeeyaa ilaahayna wax shabbaha inaanu jirin wuxuu la mid yahay inaanu jirin wax isaga la mida aynay jirin asmaada uu la khaaska yahay cid la wadaagta aynay jirin yacni waxa weeye asmaadiisa iyo sifaadkiisana loo gaar yeelo wa rusulihi rasuullada ilaahayna waa rumeeyey waa rasuulladii ilaahay soo diray oo dhan baan rumeeyaa macnuhu u dhacay rasuulladana waxaa loo rumaynayaa inay yihiin qaar makhluuqa oo ilaahay soo diray oo uu risaalad u soo dhiibay inay markaa yihiin khasaa'ista ilaahayna aan wax ilaahay la wadaagaan aynay jirin oo rubuubiyada iyo cibaadada ilaahay lama wadaagaan sifaadka markaa ilaahay sifaad la mida male oo ma shabbahaan ilaahay ma shabbahaan oo lama mid aha addoommo ilaahay oo ilaahay caabudaaya rabbi in lala caabudana aan u xaq lahayn inay yihiin baa loo aqoonsanaya
cilmulghaybkana qadarka loo sheegay keliya ka og, wax kaloo dheeraaday ka og yihiin ayna jirin. caalimu lghaybi falaa yudhiru calaa ghaybihi axadan ila man irtadaa min rasuul. xadiiska sidan ku soo arooray isaguna waa min xadiisi abi hurayra, waa riwaaya lilxadiis alawal. xadiiska hore waa riwaayo kale uu leeyahay, muslim baana saxiixa ku soo wariyey. waxaanuu isagu sheegayey macnaha kaasoo kale u sheegayey, inuu qofku hadduu shaytaanku waxaa ku waswaasiyo oo su'aalaha weydiiyo inuu yidhahdo aamantu billaahi wa rusulih, ilaahayna waa rumeeyey, rasuulladiisana waa rumeeyey. xadiiska 135 yaqra'u qawlahu tacaala huwa alawwalu waalaakhiru waaldaahiru waalbaatin. huwa ilaahay alawwal waa kii horreeyey oo shay ka horreeyey ma jirin, shay la horrayn ahina ma jirin. waalaakhiru waa ka dambeeye weligiiba jiraya baaqiga ah. inuu weligiiba jirayaana waa sifa daatiya lahu, cid kaleoo siisay ma jirto, isaga idaat ahaan uga sugnaata. aakhiriyadu alaakhiriya. waaldaahiru waalbaatin waa ilaaha korreeya, alcaali calaa kulli shay, wax walba ilaahay waa ka korreeya. awood ahaan iyo sharaf ahaan iyo daat ahaan mid walba ilaahay waa u korreeya. waalbaatinu waa ilaaha markaa dhow oo shayna shay aanu ka xijaabin, wax walba markaa og, shay ka qarinaya aanu jirin, shay ka xijaabaya aanu jirin. isagoo korreeya ayuu meel walba waxa ku sugan taalacanaya, uuna og yahay, wax ka qarsoonna aanu jirin. wa huwa bikulli shayin caliim. ilaahay wax walba wuxuu ahaaday mid u cilmi badan buu ahaaday, wax walba ilaahay waa garanaya. xadiis marfuuca ma aha, waa asar mawquuf ku ah cabdullaahi bnu cabbaas. abu zumayl nin la yidhaahdo taabici ah ayaa u yimi cabdullaahi bnu cabbaas, markaasaa wuxuu ku yidhi naftayda waxaan ka helayaa nooc shaki ah, yacni waxbaan naftayda ka helayaa. ma tasriixin, laakiin waa ishaara. naftayda waxbaan ka helayaa buuri, maxaan sameeyaa? yacni wuxuu u jeedaa nooc shaki ah ayaa mar igu soo darinaya oo waswaas ah, bimacnaa aan ku sugnaanayna khawaatir ah oo igu soo dhacaysa. khawaatir noocaasuu shaytaanku igu soo tuuraya. markaasaa cabdullaahi bnu cabbaas wuxuu ku yidhi idaa wajadta fii nafsika shay'an faqul huwa alawwalu waalaakhiru waaldaahiru waalbaatin wa huwa bikulli shayin caliim. naftaada haddaad wax ka hesho yaa dareen noocaa ku saabsanoo waswaasi hadduu kugu soo dhaco, waxaad tidhaahdaa huwa alawwalu waalaakhiru waaldaahiru waalbaatin wa huwa bikulli shayin caliim. aayadda akhri. xadiiska waxaa soo wariyey abu daawuud ayaa soo wariyey, sheekh albaanina waa taxsiininayaa oo wuxu uhi waa xasan. masalada axaadiistani ku saabsan tahay waxay ku saabsan tahay ruuxa waswaaska ku soo dhacaya oo shaydaanku ka waswaasgelinayo jiritaanka ilaahay. shaydaanku markuu arko ruuxu inuu hanuunay, wuxuu doonayaa inuu markaa ku furo shubuhaad, wuxuu doonayaa inuu shaki geliyo, wuxuu ku soo tuurayaa su'aalo fara badan ayuu ku soo ridayaa. sharka shaydaanka siduu isaga daafici lahaa ayaa laynoo sheegayaa. nebigu horta wuxuu ka yidhi arrinka ku saabsan waswaaska marka qofka waxaasi ku yimaadaan, daaka sariixu liimaan, waa iimaankii saafiga ahaa. saxaabada qaar baa waxay ku yidhahdeen nebiga sala allahu aleyh wasalam, yaa rasuul allah, wakhtiyada qaar waxaa nagu soo dhacaa wax midkaayo ay ku weynaanayso, ku adkaanayso inuu ku dhawaaqo ku hadlo. markaasu awajadtumuuh, miyaa hesheen? waxay yidhahen haa. qaala daaka maxdu liimaan, waa iimaankii saafiga ahaa. riwaayo kalena waxay sheegaysaa sariixu liimaan. ya culammadu waxay yidhaahdeen waxyaalahaasi inay ruuxa ku soo dhacaan lafteedu ma aha iimaankii saafiga ahaa, ee waxaa laga tilmaamayaa waxa sababee keensadaa iimaanka saafiga ah. wuxuu kaloo nebigu yidhi alxamdu lilaahi aladii radda kaydahu ila alwaswasa. waxaa mahad leh ilaaha dhagartii shaydaanka u celiyey waswaas. shaydaanku goormu qofka waswaasiyaa? markuu ogaado inaanu wax kala yeeli karin ayuu waswaaska la yimaadaa. waa qof hanuunay oo shaydaankii ka fara baxay, markuu arkay inaanu gacan ugu jirin ayuu waswaaskan ku soo tuuraa. sheekh culammadii hore ka mida waxaa lagu yidhi nimankii yuhuudda ahaa waxay yidhaahdeen annaga shaydaanku nama waswaasiyo. markaasaa wuxuu ku jawaabay oo muxuu ka waswaasiyaa shaydaanku? guri madhanaan xabbadi ool tuug muxuu ka qaadi? gurigu hadduu khali yahay, shayba aanu ool, tuug hadduu soo galo muxuu ka xadi? waxallo wax laga xadaaba ma yaaliin, waa khali. quluubta yuhuuddu saasay khali u taho xabbad iimaani kuma jirto. mar haddaan xabbad iimaani ku jirin oo adrhigii shaydaanka ay yihiin, dee waswaasinba maayo, xeray ugu jiraan, xero ayay ugu jiraan.
laakiin ciddii iimaan qalbigooda galo oo shaydaanku wax kale ka qaadi kari waayo ayuu waswaasiyaa. waa kaa nebigu yidhi sala allahu alayh wasalam, alxamdu lilaahi aladii radda kaydahu ila alwaswasa. mahad waxa leh ilaaha dhagartii shaydaanka u celiyey, waswaas u celiyey, inuu khawaatirtaasu ku soo tuuro. hadda maarta marka sariixuliimaan waxa ah arrinka sababay waswaaska ayaa markaa sariixuliimaan ah, ee waswaaska laftiisu ma aha. saasay ahlucilmigu yidhahdeen. haddaba shaydaanku su'aalahan uu ruuxa ku soo tuurayo inuu qofku shaydaankii iska raaca maaha. marka hore shaydaanku wuxu odhanaya waxaan yaa abuuray, adiga yaa ku abuuray. marka dambe odhanaya ilaah yaa abuuray. waa inaanu shaydaanka la wadin. tartiibaadku la imanayaa waxay tahay, kow, waliyantahi, ha ka reebtoomo waxa waa xidhayaa, lama sii wadayo. daaqadda caynkaasi uga imanayaan waa inuu albaabaa xidhaa. laba, waa inuu ilaahay magan galaa, acuudu billaahi min ashaytaani alrajiim, allah waa inuu magan galaa. shayga saddexaad waa inuu yidhaha aamantu billaahi wa rusulih, ilaahay baan rumeeyey, rasuullada ilaahayna waa rumeeyey. ilaahayna waa rumeeyey, rasuullada ilaahayna waa rumeeyey. marka saddexdaa umuurood buu isku daraya. cabdullahi bnu cabbaas wuxuu markaa inoo sheegay isaguna aayaddan inuu akhrinayo ku celcelinayo, huwa alawal waalaakhir waaldaahir waalbaatin wa huwa bikulli shayin caliim. culamo kalena waxay yidhaahdeen suuratu likhlaas buu ku celcelinayaa, bismi illaahi alraxmaan alraxiim, qul huwa allaahu axad allaahu asamad, yani ila aakhiriha. suuradduu dhammaynayaa oo ku celcelinaya, waayo tawxiid bay iyaduna sheegaysa. tawxiid ayay sheegaysa. khawaatirtaa waa in layska xidhaa, shaydaankana waa in layska naaraa. aad iyo aad waa intaa la ysaga jiraa. culamada qaar waxay yidhahdeen ruuxa marna khawaatir bay ku tahay ku soo dhacaysa oo sidan buu yeelayaa, marna waxa weeye shubahaad weyn baabay noqoto nawcan maa qalbigii kuba sugnaatay. markay sidaas noqoto caqliyan in loo qanciyo u baahan yahay. waa adilla caqliya lagu qanciyo. masalan, jiritaanka ilaahay waxyaalaha lagu garanaya dee waa fara badan yihiin. adilla caqliyaba lagu sugaya ilaahay oo makhluuqa caynkanee sidan u abuuran, ee caalamkan dhan ah, ee cir iyo dhulba leh, ee waxa ku dhex nool leh, habeenkiiyo maalinta isweydaaranaya, iska daba imanaya, khalalku aanu ku dhacayn, munadamka ah, nidaamsan ee tartiibsan, tadbiir muxkama weeyi. ma dhici karto inuu isagu keligii iswado, inuu is abuuro, inuu iska jiro isagoaan cidi abuurin, inuu iska samaysmaa ma dhici karto. mana dhici karto biduuni mudabbir, cid maamulaysa la'aanteed inuu iska jiraa ma dhici karto. marka horena inuu samaysmaa biduuni khaaliq, iyadoo cidi aynay abuurin ma dhici karto. mar labaadkana inuu sii jiraa ma dhici karto, oo uu markaa nidaamsanaado iyadoo cid maamulayso, ilaalinayso, dabberaysaa aynay jirin. ilaa budda waa inay jiraan cid maamulaysa oo markaa waxaa jirsiisay oo dabberaysa oo maamulaysa waa inay jirta. weliba ciddaas inay waaxid tahay waa lagama maarmaan. waayo haddii ay ahaan lahaayeen mutacadid oo laba ay ahaan lahaayeen ama wax ka badan, nidaamka khalal baa geli lahaa, mar baa ikhtilaaf iman lahaa. ikhtilaaf baa iman lahaa. haddii waxa weeye beled ay ka wada talinayaan laba amiir oo mid weliba awood badan yahay, mid welibana doonaya amarkiisu inuu fulo, dee markaa nidaamku sidaa kuma socon kareen. waxaa ka iman lahaa iskhilaaf, iska hor imaad. haddii iskhilaaf ka yimaadana laba mid bay noqon lahayd. war inoo kala sooco, adiguna intaad abuurtay qaado, anna intaan abuuray aan qaato. amaba inay isku laayaan oo mid is yidhaahdo isku darsan labadaba. labada tii dhacdaba nidaamkani ma jireen. haddii la yidhahdo kii cirarka abuuran cirarka ha qaato, kii dhulka abuuran dhulka ha qaato, kii qorraxda abuuray qorraxda ha qaato, kii markaa dayaxa abuurayna dayaxa ha qaato, kii habeenka abuuray habeenka ha qaato, kii maalinta abuurayna maalinta ha qaato, dee nidaamku ma jireena khalal baa ku iman laha. hadday isku laayaanna dee markaa hadalkeedaba dah. hadalkeedaba hadday isku laayaan, laba dowladood xoog badani dhulkay isku laayeen, dee waxaa ka yimaada kharaab iyo baaba iyo halaag iyo burbur iyo cabsi iyo amni darro. waxay noqonaysaa kharaab. bal haddii laba ilaah isku layn lahaayeen ka warran caalamkan, dee ma jireen. wuxuu noqon lahaa markaa mid baabaa. kullu daalika waxay caddaynayaan dee jiritaanka ilaahay iyo waaxidnimadiisa, iyo inuu markaa tadbiir keliya iyo maamul keliya khalqigan inuu markaa ku socdo maamulkiisa. macnaha caynkaas aynu sheegnay waxay ku sugantahay aayadda allah yidhi, ma ittakhada allaahu min waladin wamaa kaana macahu min ilaah idan ladahaba kullu ilaahin bima khalaqa walacalaa bacduhum calaa bacd. waa daliil caqli ah
misena sharciga laynoogu sheegay oo adiladu ay tilmaamayso weeye marka shay kasta oo yacni jira maaha ilaaba ilaa inuu leeyahay cid jirsiisay laakiin waxa weeye saxdu waxay tahay shay kasta oo jiritaankiisu soo darriyey oo aan jiri jirin laabudda cid jirsiisaa jirtaa la odhan maayo kullu mawjuud laabudda lahu min muujid laakiin waxaa la odhanayaa kullu mawjuudin muxdas shay kastaoo yacni la soo darrisiiyey oo soo darriyo aan qadiim ahayn oo weligiiba jirin ee awal leh laabudda lahu min muxdis min muujid mid jirsiyaa lagama maarmaana allah waxa weeye waa mawjuud aan jiritaankiisu xaadis ahayn ee isagu marka qadiim yahay oo weligiiba jiray weligiina jiri doona weligiina jiray weligiina jiri doona laakiin ka jiritaankiisu soo darriyey wuxuu u baahan yahay ciduu jiritaanka ka kasbaday oo jirsiisay ayuu u baahan yahay makhluuqaadkan cidda jirsiisay ma cid iyaguna soo darridayba oo u baahan cid jirsiisay mise waa cid iyadu markaa waxa weeye jirtay oo aan cid jirsiisa u baahan laabudda cidda jirsiisay waa inay tahay cid iyadu markaa jirtay oo cid jirsiisa aan u baahnayn jiritaankiisuna uu qadiim yahay yaa azalan weligiiba jiray yacni marka waxa weeye jiritaankiisu aanu awal lahayn waayo mid soo darrinta kala mida oo sida makhluuqani u soo darriyoo kale u soo darriyey inuu makhluuqan abuuro xaddigan leh ee sidana ma suuragal aha laabudda waa inuu yahay mid waxa weeye isagu wax jirsiiya laakiin isaga aan la jirsiin midaan awal lahayn makhluuqaadka awal leh isagu awal ma leh marka calaa kulli xaal bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen haddii waxyaaluhu ay ku istiqraaraan qalbiga waxay u baahan yihin qofkii in caqliyan loo qanciyo u baahan yahay laakiin hadday khawaatir keliya tahay tartiibta intanunbaa la samaynaya baabka 41aad ducaau qadaa'i dayn daynka gudista la gudaayo ducada lagu ducaysanayo marka ruuxii daymoobo ou daynka iska bixin kari waayo inuu ilaahay ka baryo weeye inuu daynka ka bixiyo oo daynka ka gudo wuxuu nabigu yidhi calayhi salaatu wasalaam waxaad tidhaahdaa allaahumma ilaahayow ikfinii bixalaalika can xaraamik ikfinii igaga kaafi bixalaalika xalaashaada can xaraamika xaaraantaada igaga kaafi bimacnaa inaan xaaraan ku dhaco xalaasha igaga kaafiyo mid kaga kaaftooma iga yeel wa akhninii bifadlika can man siwaak wa akhninii igani yeel oo hodan iga yeel bifadlika fadligaaga waxaad hani igaga yeeshaa can man siwaak cidda adiga kaa soo hadhay oo dhan xadiiskani wuxuu ahaa min xadiisi cali bn abi aalib waxaa cali bn abi aalib u yimi nin mukaatab ah nin addoona oo kitaabo lala qortay ayaa u yimi wuxuu uhi waan awoodi waayey inaan iska bixiyo xoolihii laigula heshiiyey kari waaye i kaalmee dabeedna wuxuu yidhi waxaan ku barayaa kelmado rasuulku sala allahu alayh wasalam oo markaa i baray ayaan ku barayaa waxaanuu yidhi rasuulku sala allahu alayh wasalam buurta siir la yidhaahdaa waa buur magaceed oo dayni hadday korkaaga ku sugan tahay ilaahay waa kaa bixinaya yacni buurta waa buur weyn waxaa laga tilmaamayaa buurta in la eg oo dayni hadday ku saaran tahay oo aad ilaahay barido ilaahay waa kaa bixinaya qul allaahumma kfinii bixalaalika can xaraamik wa akhninii bifadlika can man siwaak sidaa ku ducayse ruuxii markii wax awoodi waayo inuu ilaahay ku eerto ilaahay baryo oo ilaahay kaalmo weydiisto oo ilaahay markaa uu wax weydiisto weeye waayo ilaahay baa wax walba awooda ilaahay baa hani ah ilaahay baa wax walba hantiya isagaa wax walba mulkiya marka umuuruhuna isaga gacantiisay ku jiraan waxaanay ku dhacayaan qadarkiisa iyo qadaagiisay ku dhacayaan marka waa in ilaahay la baryaa xadiidka sidaa ku soo arooray waxaa soo wariyey tirmidi iyo imaam axmed iyo xaakim iyo baa soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey culamo kalena waa quweeyeen oo uu ka mid yahay sheikhulalbani oo isaguna waxa weye waa taxsiiniye wuxu uhi xadiisku waa xasan ayuu yidhi taasi waxa weeye waxay tilmaamaysaa marka dayn markaa ruuxa lagu leeyahay uu daynta iska bixin kari waayo inuu ilaahay baryo ayay tilmaamaysaa sida kurbaadka iyo waxyaalaha waaweyn oo dhan rabbi lagula eeranaayo oo ilaahay loo baryaayo ayaa laga qaadanaya mukaatabaduna waa addoonkii ayaa ariiqu addoonnimada kaga baxo ayaa loo furay ariiqyo badan baa loo furay oo addoonnimada kaga bixi karo taasina waxay ka mid tahay waxyaalaha diinta islaamku ay ku wanaagsan tahay bay ka mid tahay
waxyaalaha wanaagsan ee faraha badan leh ee diintu leedahay ayay ka mid tahay waddada marka waxa weeyaan addoonnimo lagu helo waa la cidhiidhiyey oo waxa laga yeelay mid yar baa laga yeelay dariiqa lagu helaa waa dariiqa jihaadku ku yimaadaa ruux markaa muslimana lama addoonsan karo waxa weeye yani waxa weeye sabab waxa waa marka hore gaalnimo macajzun xukmiyun yaquumu bilinsaani sababuhu alkufru yani noocaas wey marka dariiqaa jihaadkaanu ku yimaadaa oo dadkii la soo qafaashay ayaa waxa bannaan in addoommo laga dhigto inta aan markaa gacanta lagu dhigin ka hor hadduu islaamo lama addoonsan karo laakiin marka la qabsaday oo gacanta lagu dhigay oo la qafaashay hadduu markaa islaamo addoonnimadii ku dhacday yani gacantii lagu dhigay xukunkii marka ay keensanaysay ama bannaanaanayay kama daafacayso waayo haddii waxa weeye la yidhaahdo ruuxii islaamnimo muujistaba marka faraha laga qaado dee gaal kastaaba marka la qabto siduu u dagaalamayey marka gacanta lagu dhigo wuxuu muujisanayaa islaamnimada marka faraha laga qaadana halkiisii buu ka miisaya ya marka waxa si aan taasi u dhicin xeeladda aan loola iman ciddii marka gacan lagu dhigay xukunkii ka iman karaayey oo ah markaa in la addoonsado kama daafacayso oo kama baajinayso ha yeeshee waxa weeye yani dil waa ka baajinaysaa oo markii hore hadduu ahaa kaafir dee waxa weeye xarbi ah oo muslimiinta la diriraya oo la dagaalamaya oo dilkiisu bannaanaa marka la qabto dilku waxa weyan iyadoo uu bannaan yahay haddana waxa weeye dee hadduu islaamo isagu dhiiggiisii waa dhowrmay marka waxa weeye in xaaladdaa la dilaa mid bannaanaanaysa maaha waayahay dariiqyada marka badan ee marka addoonnimada laga baxayo waxaa ka mid a mukaatabo fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa haddii wanaag lagu arko yani waxa weeye kasab iyo marka waxa weeye awoodna lagu ogaado inuu wax kasban karo sida kalena salaax iyo wax loogu arko yani waxaa la yidhi mukaatabo la sameeyo fakaatibuuhum in calimtum fiihim khayraa yani mukaatabo la sameeya haddii aa khayr markaa ku ogaataan yani saas ayaa markaa la yidhi marka waa ariiq yani markaa la furay oo marka addoonnimadii ay kaga baxayaan weeye sideedana waa la booriyey marka waxawe in la xoreeyo addoommaha marka in la xoreeyo ilaa kafaaraadkii dunuubta laga dhigay oo dembiyada in laga kafaaro gudo laga dhigay xadiiska 137 allaahumma inii acuudu bika min alhami walxasani walcajzi walkasali walbukhli waljubni wadalaci اddayni waghalabati اrijaal xadiiskana waa xadiis aynu hore u soo maray wuxuu sheegayaa in ilaahay la baryo waxaa la odhanaya allaahumma ilaahayow inii anigu acuudu bika adaan ku magan galay waxaan kaa magan galay min alhami hamiga ayaan kaa magan galay yani wax tegey aan ka markaa waxa weeye haminayo oo bimacnaa werwer ay igu keenayso ama aan ka murugoonayo walxasani iyo murugada hamigu waxay noqonaysaa markaa wax soo socda min alhami waxa soo socda inaan ka werwero ayaan markaa kaa magangelyo weydiisanaya walxasani waxa tegey inaan markaa ka tiraanyoodo aan isku cilkaambiyo baan kaa magangel weydiisanaya walcajzi taagdarrada ayaan kaa magangelyo weydiisanaya walkasal iyo wahsadka ayaan kaa magangelyo weydiisanaya walbukhli dhabcaalnimada ama bakhaylnimada waljubni iyo fulaynimada ayaan kaa magangelyo weydiisanaya wadalaci dayni iyo daynka haalib noqdaan kaa magangelyo weydiisanaya wadalaci dayni yani inuu dayn iga haalib noqdo oo iga gacan sarreeyo ayaan markaa kaa magangelyo weydiisanaya waghalabati rijaali iyo raggu inay iga gacan sarreeyaan oo iga haalib noqdaan yani anwaacdii marka waxa weeye ruuxa diiqadda gelinaysay ama cidhidhiga gelinaysay oo dhan baa ilaahay laga magan gelaya wax alla wixii qofka diiqad gelinaayey ayuu ruuxu ilaahay ka magan gelaya hadday tahay yani rag markaa ka gacan sarreeyo ka haalib noqda oo dullaysta hadday tahay dayn markaa ka haalib noqoto uu iska bixin kari waayo oo dayntiina waxa weye nooc dee dulliya ka imanaya oo ruuxa daynka kuu lihi dee ka adag ya marka uu yidhaahdo markaa daynkaygii isiyo uu qaanabo dee meel baa go'aysa qofkii yani naftiisii wax weyn baa gaadhaya wixiina aanu iska bixin karay hadday tahay yani markaa fulaynimada oo xaggii naftu inay daciifto oo ay ku daciifto marka waxawe quwadii inay markaa yeelato qalbiga markaa inuu qawi noqdo oo xoog yeesho in markaa laga waayo uu noqdo qalbi daciif ah aan markaa waxaweye waxu adkaysan karayn
aan sabri karayn xaggii maalka inuu marka waxa weye maalkii ku adag yahay aanu wax bixin karayn yani waa nooc marka isaguna yani dacfiyo markaysaga ku jirin xagga qalbigiisa labaduna waa isleeyihiin waxay yidhahdeen culammadu sida badan yani waxa weeye ruuxa geesiga ahi haaliban sida badanna markaa deeqsina waa yahay ruuxa fulaygiina sida badan yani bakhaylna waa yahay marmar naadiri waa jirtaa laakiin sida badan labadu waa israacaan oo ruuxa markaa nafta quudhaa waa geesigii maalkana waa quudhaya maalka laftiisana waa quudhaya naftiisii baabuu quudhaye sida uu maal marka waxa weeye uu u quudhi waayaa haaliban waa saas xagga marka cajsiga iyo kasalka waa wahsadka iyo marka awoodi waaga iyo waxa weeye werwerka waxa soo socda laga werweraayo iyo murugada wixii tegey laga murugoonayo waxa weeye anwaacdii dhibaatada nafta ku ahaayoo dhan ya ama waxa weeye marka xagga jidhka ha u daciifo ha looga haalib noqdo ama xagga nafta markaysaga ha u daciifo ama waxyaalo kale marka waxa weyan yani ha daciifinayaan waxyaalaha werwerka iyo murugadaasi qofka awooddiisii way qaybinayaan marka wuu daciifaya niyadiisi waxay ku maqan tahay ama wax tegey oo isku ciilkaambiyayo ama wax soo socdo mustaqbala oo uu ka werweraayo saas aawadeed wixii joogay yani marka waxa weeye tafaaculkii waxa joogay marka waxa weeye uu ka qayb qaadanayey nafti kuma wada maqna qaybna waa ta xaggaa ku maqan iyo wixii tegey waanu waxba ka soo noqonayn qaybna waxay ku maqan tahay wax marka mustaqbaloo soo socota oo aan markaa joogin oo hadda aanu waxba ka qabanayn ya xilligeediiba aan la joogin bu qaybna ku maqanta niyaddiisii marka labada qaybood marka ay ku maqan yihiin waxa jooga siduu uga qayb qaataa ili niyadiisi ma dhammaystirne waxay noqonaysaa marka waxa mid daciifay noqonaysaa ya waxa weeye wixii tegey ee ka dhacay hadduu dembi yahay ilaahay ha uga toobad keeno oo marka waxa weeye wuxuu ku istidraaki karaa kaga daba tegi karaa toobadkeen ya hadday tahay xoole iyo adduunyo seegayna waxa weeye dee yadana yaanu isku weynaynin ya saacaddan uu joogo inuu wax ka qabsado khayrka addunya iyo khayrka aakhiraba ayaa la gudboon laakiin inuu ku mashquulo waxaan marka waxba uga soo noqonayn yani waxa weye ma fiicna taasi marka mid fiican ma aha xadiiskan waxaa soo wariyey bukhaari ayaa soo wariyey baabka 42aad ducaau lwaswasati fi asalaati walqira'a waswaaska yani lagu waswaaso salaada gudaheeda iyo akhrinta qur'aanka la akhrinayo gudahooda in markaa waswaas ku yimaado ruuxii oo shaytaankii xanshaasha ku soo tuuro marka hadduu taa isaga taag waayo inu ilaahay ka baryo xadiiska 138 waa xadiiskii cuثmaan ibn abilcaas saxaabigaasaa wuxuu ku uhi yaa rasuul allah shaytaan baa anigi iyo salaadaydii iyo akhrintii qur'aanka aan akhrinayna kala teeday yani markaan isiraado tukaba waswaas buu igu soo tuuraya yalbisuhaa calaya waa iga dheehayaa markaasaa wixii iga qaldamayaan ma akhriday mise maad akhriyin ku dhawaaqday yani waxa weye shakigii baa ku badanaya nebigu wuxuu ku yidhi calayhi asalaatu wasalaam daka shayطaanu yuqaalu lahu khinzab kaasi waa shayطaan magaciisa lahaa khinzab shayطaan weeye faida axsastahu fatacawad biاllaahi minh markaad dareento ilaahay ka magan gal waxaad tidhahdaa acuudu biاllaahi min ashayطaani alrajiim acuudu waxaan magan gelayaa billaahi ilaahay baan magan gelayaa min ashayطaani shayطaankaan ka magan gelayaa iyo sharkiisi shayطaankaasoo alrajiimi ay ilmarjuumi la fogeeyey oo naxariista ilaahay laga fogeeyey ayaan ilaahay ka magan gelaya wadful calaa yasaarika alaaan xaggaaga bidixna waxaad u tuftaa 3 goor candhufo weyn ma aha waxa weeye waa in yaroo candhuufo ah iyo neef isku jira wadful calaa yasaarika alaaan 3 goor u tuf xaggaaga bidix cuثmaan ibn abilcaas wuxuu yidhi waan sameeyey dabeedna ilaahay waa iga tegsiiyey xadiiskana muslim baa saxiixa ku soo wariyey waxaa laga qaadanayaa waswaaska shayطaanku hadduu qofka ku bato inuu ilaahay ka magan galo ayaa laga qaadanaya waswaaska shayطaankuna wuxuu qofka ku bataa markuu qofku wanaagga dariiqa wanaagsan qabsado inta waxa weeye u lunsan yahay shayطaanku ma waswaasiyo ya qofku markuu waddada wanaagsan qabsado shayطaanka awood kale waa waaye waswaaskaa mooyaane waatii xadiiska ay ku soo aroortay markay saxaabada qaarkood ku yidhahdeen yaa rasuul allah waxaa nagu dhaca wax midkaayo ay ku weynaanayso inuu ku hadlaa aanu afka soo marin karayn
nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam awajadtumuuh miyaa hesheen markaasay haa markaasuu yidhi waxa weeye daaka sariixu liimaan waa iimaankii saafiga ahaa bimacnaa waxa sababay baa kaas ah riwaaya kale waxay sheegaysaa alxamdu lilahi aladii radda kaydahu ila alwaswasa waynu soo marraan filaya waxa mahad leh ilaaha dhagartii shaydaanka u celiyey waswaas oo markuu wax kale awoodi waayey oo tahli waayey ayuu is yidhi haatan tashuush ku fur markuu kaxaysan kari waayey ayuu is yidhi waswaasi oo shaki ku rid oo waswaas ku fur yani saas marka yani shaydaanku wuxuu doonaa qofku markuu waddada wanaagsan qabsado inuu waxa weeye ku furo tashuush marka waa inaan la dhegaysan dadka qaarkood way islaam raaciyaan waswaaska laakiin taa waa in la iska jiraa ya oo waxaad arkaysaa dadka qaarkood inay waxa weeye shakiga markii dambe inuu ku sii badanaayo oo xataa waxay garanayaan laga yaabo inay shaki siiyaan awal ma samaysa ya yani saasoo kala dhacda waxaan garanayaa inaan mar salaaddii xidhan kari waayo waxaa iman jiray salaadda awalkeedu iman jiray markaasuu is yidhahdaa xidho allaahu akbar ma xidhmin allaahu akbar mar walba niyaddu isaga jawaabayaa ma xidhmin waxbaa u dhinnaa niyaddii iskuma beegmin kelmaddii ugu horraysay waa yani isma waafaqin ama si saxan ugumaad dhawaaqin ku celi imaamka waa rukuucaya waa ka toosaya ragcaddii horea tegeysa ta labaad ta saddexaad ta afraad wuxuu salaaddii laga baxayaa iyadoo aanu xidhan kadib buu haddana halkan tegayaa xagga dambe allaahu akbar siduu caynkaa ugu celcelinayo ayuu marka dambe daalayaan labadaasi waa daalayaan cabaar buu deedna fadhiisanaya si uu nasto ya cabaar salaadda ninka awalkeedii waa joogay waa laga baxay waa dhammaatay kadib waxaanu haddana isku dayey inuu markaa dib ka xidho waa u suuro geli weydey labadaasi markay daalaan ayuu soodhanaya baddaba cabaar naso marka dadka qaarkood waswaasku aad ba ugu bataa marka ruuxu waswaaska waa inaanu islaab raacin waxuu xaqiiqatan garanayo shaydaanku doonayo inuu ka shaki geliyo waa inaanu ka yeelin qowlka ku saabsan maalan marka waxyaalaha ruuxa ka anfacaya waxaa ka mida shakiyadaasi markay ruuxa ku yimaadaan ahlucilmigu marka hore waxay qabaan masalada ku saabsan ruux hadduu shakiyo ma yaqiintu ku binaynaya intuu hubaya yarayd miyuu ku dhisayaa yaqiintu hadday cadam ahaydna cadamkiiba ku binaynaya mise wuxuu ku binaynaya halabatu danniga hadduu danni haaliba hayo hadduu si u badinaayo ma siduu u badinayo ayuu ku dhisayaa jamaahiirta culammadu waxay leeyihin maya yaqiintuu ku binaynaya falyatrax ishaka walyabni calaa ma stayqana xadiiskaas bay cuskanayaan ahlucilmiga qaarkood waxay qabaan waxaa loo kala qaadayaa inuu waxa weeye labada xaalood isla eg tahay aanu geesna u badinayn iyo inuu gees u badinaayo hadduu si u badinaayo halabatu danniga siduu u badinaayuu ku dhisayaa laakiin hadday isla eg tahay waa aynay kala badnayn labada ixtimaal 3 baa tukatay ma 4 haddayna kala miisaan kala lahayn markaa wuxuu ku dhisayaa yaqiinta ayuu ku dhisayaa shakigana waa tuuraya madaahibta qaarkoodna qowlkaasay qabaan ya labada qowl min xaysu daliil marka la eego waxaa raajaxsan in sha allahu qowlka odhanaya hadduu markaa si u badinaayo halabatu danni danniga haalibku ku dhisaya waxaana u daliila xadiiskii sheegayey falyataxara aladii yaraa annahu sawaab falyataxara asawaab waxaa soo aroortay yani riwaayaadka qaarkoodoo sheegaysa yaraa annahu sawaab iyo qaarkoodoo sheegaya danni sheegaya xataa mawduucana sheekh albani waxa uu ku caddaynayaa kitaabkiisa tamaam ulminna fi atacliiq cala fiqhi sunna waxaanu odhanayaa madhabkaasa arjax ah waxaanu odhanayaa sheekhu risaalan ka qoray aan marka waxa weeye mawduucaas ku sii caddaynayo laakiin khulaasadiisii wuxuu ku sheegayaa tamaamulminnaha laakiin qowlka kale cidda ku tagtay iyo marka waxa weeye raddiga la radinaayo iyo tawdiixa arrinkaa ku saabsan wuxuu ku caddaynaya risaalada kale ayuu ku caddaynaya sheekhu suu sheegay marka ahlucilmiga odhanaya yaqiintu ku binaynaya inta yar buu ka soo qaadaya marba markaanu gelin cadamku ku binaynaya inaanu weli gelin bacdigood waxay leeyihiin qofka hadduu markaa ku badan yahay shakigu oo uu shaki badan
uu shakinayo xaaladda caynkaasa wuxuu isagu shakigaa badan waa tuuraya sheekh ibnu cuthaymiin manduumadiisa alqawaacid adahabiya waa ku tilmaamay hadday shakiyadu farabataan inuu shakiyada tuurayo oo shakiga aanu waxba ka soo qaaday qofkii shaki ku badan yahay marka calaa kulli xaal wixii marka waxa shaki ah hadduu ku farabato bacdu ahlicilmi waxay leeyihiin wuu ilghaynayaa oo waa tuuraya waxba kama soo qaadayo saasay markaa leeyihin marka waxa weeye waa inuu marka qalbigiisa soo xaadiriyaa cibaadada ku dadaalaa waxaan kale inuu iska dhaafo markaysa marka uu doonaa yani waxa weye shaytaanku waa inaanu marka wax iska raacin waa inuu marka shaytaankii iska naaraa waa inuu ilaahay ka magan galaa xaggaa bidix waa inuu 3 goor u tufaa yani hadduu umuuraha sameeyo insha allah waa ka badbaadaya waxaanay culammadu odhan jireen sida bacdu ahlicilmi yidhaahdeen shakiga badan waxa sababa ima jahlun bisharci wa ima khablun fi lcaqli yani caqliga marka waxa yani in markaa nuqsaan ama fasaad ku jiro ama sharciga inuu ruuxu ka jaahil yahay labadaa mid ayaa keensata marka shaytaankii waa inuu ilaahay waa inuu magan galaa oo sharka shaytaanka ka magan galaa sharka shaytaanka waa inuu ka magan galaa waswasadana waa inuu iska jiraa aanu islaab raacin oo aad iyo aad isaga ilaaliyaa waayo shaytaankii qofkii waxa weeye wuxuu doonayaa cibaadadii inuu ka fasahaadiye ayuu doonaya sheekh culammadii hore ka mida waxaa laga sheegay inuu yidhi haddii aad soo marto meel ama beer iyo wax la mid ah oo ey qola leedahay joogo oo kugu qayliyo maxaad samaynaysaa wuxuu yidhi waa iska eriyayaa haddana hadduu kaa tegi waayo kugu soo cararo oo kugu qayliyo waa iska eriyayaa buuhi haddana hadduu kugu soo cararo oo kugu qayliyo waa iska eriyayaa buuhi sheekhii baa wuxuu ku yidhi way kugu badanaysaa saasi sidaa ha yeelina waxaad samaysaa ninka eygale la hadal inuu kaala hadlo markuu kaala hadlo eygu waxba ku yeeli maayo shaytaanku markaa wuxuu ka dhigan yahay eygaasoo kale u ka dhigan yahay ya eygaasoo kale uu ka dhigan yahayo dee ilaahay abuurtay ee mulkinayey ee wax walba lahaa haddaad markaa ka magan gasho dee waa kaa magan gelinaya baabka 43 ducaau man istascaba calayhi amrun ducada uu ku ducaysanayo ku arrin ku adkaada uu ku ducaysanayo waxaa ku soo aroray xadiiskii anas oo sheegayey in nabigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam allaahumma laa sahla ila ma jacaltahu sahlan wa anta tajcalu alxasna sahlan ida shi'ta allaahumma ilaahayow laa sahlanaansha ma jiro ilaa maa jacaltahu sahlan waxaad sahal ka yeeshay mooye sahal kale ma jiro yani waxaad adigu sahashuun baa sahlan allaahumana waxay la macnatay ya allah wa anta tajcalu alxasna adigu waxaad ka yeelaysaa waxa adag idaa shi'ta sahlan haddaad doonto shay fudud baad ka yeelaysa shay fudud ayaad markaa ka yeelaysaa marka macnuhu wuxuu u dhacayaa ilaahu sahal iiga yeel oo ii fudaydi ayaa macnuhu u dhacaya marka waa ilaahay oo laga baryaayo inuu umuuraha sahlo oo fudaydiyo la weydiisanayo xadiiskana waxaa soo wariyey ibnu xibbaan waxaa kaloo soo wariyey diyaa almaqdasi fii axaadiis mukhtaara ayaa markaa soo wariyey waanu taxsiiniyey ibnu xibbaanna waa saxiixiyey diyaa lmaqdasina waa taxsiiniyey wakadalika culammada marka mucaasiriintana arnauud iyo albani labaduba waa saxiixiyeen marka wuxuu sheegaya xadiisku baryo ilaahay la baryaayo oo umuuraha yani inuu ilaahay u fudaydiyo inuu ruuxu ilaahay ka baryo weydiisto marka ka wax walba mulkiya ee wax walba hantiya ayuunba ama fudaydinaya ama adkaynaya yani umuurahoo dhanna waxay ku dhacayaan qadarkiisay ku dhacayaan wamaa tashaa'uuna ila an yashaa allah marka waxa weye ilaahay baa waxaa laga baryayaa inuu ilaahay sahlo fudaydiyo baabka 44 maa yaquul wayafcalu man adnaba denban wuxuu odhanaayo ama samaynaayo kii dembaaba baabka 44 xadiiska 140 maa min cabdin yudnibu denban fayuxsinu الطuhuura uma yaquumu fayusallii rakcatayn waa xadiiska cali bn abi aalib cali bn abi aalib ayaa wuxuu yidhi waxaan ahaan jiray nin baan ahaan jiray haddaan xadiis nebiga ka maqlo calayhi asalaatu wasalaam xadiiska intuu ilaahay doono inaan ku intifaaco ayaan ku intifaaci jiray haddaan anigu nebiga ka maqlo calayhi asalaatu wasalaam intuu ilaahay doono inaan ku intifaacan ku intifaaci jiray
haddii cid markaa asxaabta nebiga ka midii calayhi asalaatu wasalaam ay ii sheegto xadiis nebiga iiga sheegtana waa dhaarin jiray, wallaan marin jiray inuu xadiiskaa nebiga ka maqlay calayhi asalaatu wasalaam. waa hubsasho yani markaa uu sii hubsanayey weeye. laakiin maaha khabarulcadli inaanu aqbali jirin maaha, laakiin wuxuu uga jeeday ziyaadatu tawkiid iyo adkayn dheeraada iyo hubsasho markaa ziyaadaa buu uga jeeday. markii dambe ayaa xadiis nebiga iiga sheegay calayhi asalaatu wasalaam abubakar baa iiga sheegay. abubakarna run buu sheegay, yani abubakar ma dhaarin, uu ka xishooday inuu dhaariyo. wuxuu yidhi buu yidhi maa min cabdin yudnibu danban fayuxsinu طuhuura uma yaquumu fayusallii rakcatayni uma yastakfir allaha ila gafara allahu lah. addoon dembaabaa ma jiro oo daba tahaaro qaatoo tahaarada wanaajiya, si wanaagsan u tahaaro qaata, dabeedna kaca oo istaaga oo 2 ragcadood tukada, kadibna ilaahay dembi dhaaf weydiista inuu ilaahay u dembi dhaafo mooyaane. yani umuurahaasi ma dhacaan oo sidaa ma sameeyo. haddii ay dhacdo ilaahay baa u dembi dhaafaya. uma qara'a hadihi alaaya waladiina ida facaluu faaxishatan aw dalamuu anfusahum dakaruu allaha faاstakfaruu lidunuubihim waman yakfiru dunuuba ila allah. aayaddaasu akhriyo. marka xadiiska waxaa soo wariyey asxaabu sunan ayaa markaa xadiiska soo wariyey, abu daawuud iyo tirmidi iyo nasaa'i fi lkubra iyo ibn maajah. xaafid ibn xajarna waa saxiixiyey, albaanina waa saxiixiyey. maa min cabdin addoon ma jiro addoonkaasoo yudnibu danban dembi dambaabaya oo fa yuxsinu wanaajinaya aطuhuura tahaaro qaadashada wanaajinaya, sida uu tahaaro qaadanayo wanaajinayo, si wanaagsan u weysaysanaya. tahaaro qaadashada waxaa soo gelaya haddii waxa weeye markaa najaasa ku sugantay inuu iska maydho, waxaa soo gelaya xadaث alakbar iyo xadaث alasharba inuu ka tahaaro qaato, si wanaagsanna u tahaaro qaato. uma yaquumu dabeedna wuu kacayaa fayusallii rakcatayni 2 ragcadood buu tukanaya, uma yastakfir allah, intaa dabadeedna ilaahay buu dembi dhaaf weydiisanaya, ilaa gafara allahu lah, inuu ilaahay u dembi dhaafo mooyaane. marka waxaa laga qaadanayaa in waxa weeye toobadkeenka iyo istikfaarka in loo tahaaro qaato oo la tukado marka waxa weye ducada ka hor 2 ragcadood la tukado. tawasuloo kale ka dhigan tahay min qabiila tawasul, dabeedna ilahay baa la dembi dhaaf weydiisanaya, ilahay la baryaya dembiga inuu kaa dhaafo. marka iyadoo qalbiga lasoo xaadirinayo, aad marka waxa weye loo soo xaadirinayo qalbiga. marka hadduu sidaa yeelo ilaahay waa ka dhaafaya. shardina ma aha 2 ragcadood inay markaa tahay sunne, ee waxay noqon kartaa inuu 2 ragcadood oo marka waxa ama farala ama sunna a dabageliyo. hadduu waxa weeye salaaddii subax tukado oo u kaco oo dabeedna dabadeed markaa ku ducaysto ama aakhirkeeda ku ducaysto, waxay noqonaysaa markaa mid yani markaa saa'iqoo bannaan. waayo riwaayaadka qaarkood baa ku soo aroortay uma yusallii rakcatayni aw 4 mafruudatan aw hayra mafruuda uma yastakfir allaha ilaa gafara allahu lahu. riwaayada sidaa ku soo aroortayna sheekh albani waa saxiixinaya. waayah towbadduna waxa weeye inta ruuxu aanay soo gaadhin, naftu dhuunta soo gaadhin waa u furan tahay. hadday naftu dhuunta soo gaadho albaabka towbaddu waa xidhan yihin. in allaha yaqbalu towbata alcabdi maa lam yuqarqir. laakiin hadday dhuunta soo gaadho albaabkii towbaddu waa xidhan yahay. marka inta ka horaysa waa in istikfaarkiiyo towbada lagu dadaalaa, ilaahay la baryaa. waxaa laga sheegay culamadii hore qaarkood inay yidhaahdeen asbixuu taa'ibiin amsuu taa'ibiin. waxaa waa barisataan idinkoo toobad keenaya, waxaana marka waxa habeensataan idinkoo toobad keenaya. waayo ma ogid geeridu gooray imanayso. marka waxa weeye waa inaad markaa towbaddii iyo toobadkeenkii aad marka waxa weeye soo celcelisaa, oo gelin hor iyo gelin dambe iyo xilli walba yani waa inaad marka ku dadaashaa. saas aawoodee xataa salaadaha marka laga baxo astaqfir ullah astaqfir ullah astaqfir ullah waa salaadaha faralkaa marka laga baxo lagu bilaabaya. bale salaadda dhexdeeda rabbi kfir lii rabbi kfir lii rabbi kfir lii. hadda maarta xaaladaasaa loo baahan yahay qalbiga in la soo xaadiriyo oo waxa weeye towbaddii la niyoodo, oo wixii marka waxa in laga murugoonayo la niyoodo. allahuma kfir lii watub calaya astaqfir ullah waatuubu ilayh. yani waxa weeye waa in markaa la farabadiyaa. waxay la soo wariyey ruuxa markaa waraaqihiisa acmaasha ka helay istikfaar fara badan, kaasi waa liibaane.
ya istighfaarka culamadu waa badin jireen hata sheekh culamadii hore ka mida laga sheegay inuu yidhi waxaan tiriyey wixii dembi cimrigayga iga dhacay innaga inooma tirsanaba isagu cimrigoo dhan wixii ka dhacay buu tiriyey markaasuu waxay noqdeen 45 dembi ayay noqdeen mid walba waxaan ilaahay dembi dhaaf ka weydiistay buuhi 100,000 oo goor 100,000 marra baan dembi kasta ilaahay ka dembi dhaaf weydiistay haddana waxaan ka baqayaa buu yidhi markaa in dee lay qabsado waa ka warwaraya yani marka inagu aynu markaa xoogaa astaghfirullah wa atuubu ilayhi aynu idhaahno dhowr goor waxaa laga yaabaaba markaa dad fara badani dembigaba inay ilaawaan ya waa iska yani markaa niyeystaan yani marka halkaas khalaas waa dhammaatay hawsheedii mana ogidda in la aqbalay ducadii istighfaarkaagii iyo toobadaadii in la aqbalay kama warqabti marka mar haddaanad yaqiin ahaan u ogeyn waa inaad kaga sugnaataa bayna alkhawf waalrajaa ya cabsi iyo rajo dhexdood waa inaad kaga sugnaataa baabka 45aad ducaau tardi ashaytaani wa wasaawisihi shaytaanka eriga la eryaayo ducada ilaahay laga baryaayo caydhinta shaytaanka la caydhinayo iyo wasaawista shaytaanka waswasada shaytaanka iyo xanshaashaqa shaytaanka yani ducada ku saabsan ilaahay laga baryaayo inuu ilaahay kaa kaafiyo kaa kaxeeyo xadiiska 141 alisticaadatu billaahi minhu in ilaahay laga magan galo shaytaankii oo la yidhaho ilaahu iga magan geli ilaahay iga ilaali axaadiis kala duwan baa ku soo aroortay oo mawduucaas markaa sheegaysa in waxa weeyaan ilaahay la magan galo tilmaamaysa xadiiskii haddeer aynu soo marrayna isla mawduucaas waa ku saabsanaa axaadiis kale oo ku saabsanna waa jiraan marka waxa weeye waxaa ka mida xadiis sheegaya in nebiga calayhi salaatu wasalaam oo ninkuu yidhi salaadda waxaad markaa la timaadaa adkaartan allahu akbaru kabiira allahu akbaru kabiira allahu akbaru kabiira walxamdu lilaahi kaiira walxamdu lilaahi kaiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasiila 3 saddex goor saa dheh dabeedna waxaad tidhahdaa acuudu billaahi min ashayطaani min nafkihi wa nafsihi wa hamzihi yani ilaahay baan magan galay oo aan sharka shayطaanka ka magan galay yacni afuufistiisa iyo tufistiisa iyo gujintiisaan ka magan galay axaadiis kale waa soo aroortay oo sheegaysa in nebigu sala allahu alayh wasalam inuu odhan jiray acuudu billaahi mink shaydaanka isagoo la hadlayo wuxuu odhan jiray ilaahay baan kaa magan galay ilaahay baan kaa magan galay xadiiskii ibn abilcaas laftiisu isticaaduu sheegayey wuxuu kaloo nebigu sheegay xadiis kale yacni cifriit jinka ka mida ayaa xalay iga baxsaday buuhi si uu markaa waxa weeye salaadda iga gooyo dabeedna ilaahay waa gacantuu ii geliye waa i awoodsiiyey dabeedna waa qabtay buuhi waxaan doonay buuhi inaan xidho haddii aan xidhi lahaa buuhi waa xaarki lahaydeen isagoo markaa waxa weeye xidhan oo waxa weeye carruurta reer madiina ay ku ciyaarayso laakiin waxaan xasuustay wi ducadii walaalkay sulaymaan uu yidhi rabbi hablii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdii hablii mulkan laa yanbagii liaxadin min bacdii markaasuu sii daayey calaa kulli xaal axaadiis kala duwan baa ku soo aroortay in ilaahay la magan galo oo sharka shaytaanka laga magan galo marka isticaadada waa arrin muhima weeye arrin aad iyo aad u muhima weeye faida qara'ta alqur'aana faastacid billahi min ashayطaani alrajiim qur'aankii marka la akhrinayo laftiisa waa in lagu bilaabaa magangal ilaahay laga magan gelaayo sharka shaytaanka laga magan gelayo waxaa laga cararayaa waswasada shaytaanka laga cararayaa 142 waxyaalaha kale sharka shaytaanka daafacaya waxaa ka mid ah aladaan addimaadda salaadda loo addimo oo kale in lala yimaado xadiis waxaa ku soo aroortay in nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam marka salaadda loo addimo shaytaanku waa jeestaa isagoo yacni waxa weeye dhuusadiisa isku qarinaya oo isle markaa ha maqlin ya idaa nuudiya lisalaati adbara ashaytaanu walahu duraad waa cararaa isagoo sanqadhaana samaynaya sanqadha waliba mid yar maaha xataa laa yasmaca ta'diin wuxuu sanqadha u samaynayaa si aanu adaanka u maqlin yani wuxuu isleeyahay yaanad maqlin adaanka yaanad maqlin be dhuusadan isku qari oo markaa waxaa weeye dhegaha ku tashuushi markuu adaanku dhammaadana waa soo noqonaya marka haddana salaadda la qiimu dib u cararaya sidii oo kale
marka iqaamadu dhammaato ayuu haddana imanayaa qofkii salaaddii u galo dabeedna markaas u waswaasinaya isagoo ku odhanaya udkur kada waxaa xasuuso waxyaale uu ilowsanaa buu soo horkeenaya ya ilaa qofku aanu kala garanayn in misuu tukaday marka adaanka shaytaanku ma xamili karo waa ka cararaya marka waxyaalaha shaytaanka eryaya waxaa ka mid a adaanka ayaa ka mid a iqaamaduna waa la mid aladaan waaliqaama shaytaankii waa eryeysaa waayahay marka waxaa laga qaadanaya fadliga adaanku leeyahay baa laga qaadanaya waxaa laga qaadanayaa shaytaanku si aanu qur'aanka uga cararin inuu adaanka uga cararaayo waxaa laga qaadanayaa adaankii inuu koobsanayo dee tawxiidka weliba dadka loogu yeedhaayo ee lala qaylinaayo shahaadateynka iyo khayrka dadka loogu baaqaayo waxaasoo dhanna isaga dhib bay ku tahay hadduu qofku keligii isagu wax la yimaado oo cibaadaadka la yimaado waa cibaadaad isaga ku kooban laakiin tani waxa weeye cibaado qofkiina la imanaayo dadkii kalena nafcigeeda u tallaabayo weeyaan adaanka fadligiisu inuu weyan waxaa ku tusinaya dee cid kastoo maqasha oo xataa geed iyo dhagax iyo wax kastaaba waa u markhaati kacayaan muadinkii waa u markhaati kacayaan saas aawoodee axaadiista waxaa ku soo aroortay marka salaadda loo addimo inaanu ninku masjidka ka bixin masjidka inaanu ka bixin isagoo aan doonayn inuu ku soo noqdo dan waa uga bixi karaa wuu niyeysan yahay ka soo gaadh salaaddan waxyaalaha loo diidaya waxaa ka mid ah bixitaanka uu masjidka ka baxaayo xaaladdaas tashabbuha uu shaytaanka shabbahayo ile markaa la addimayo shaytaankii ba cararaya marka isagina waxa weye markaa adaankii dee inuu cararo kabihiisa boobo cararo saasayna u fiicnayn 143 aladkaaru wa qiraa'atu alqur'aan waxyaalaha kale shaytaanka waswaaskiisa eryaya ama sharkiisa baajinaya waxaa ka mida adkaarta dikriyada la akhriyo iyo qur'aanka in la akhriyo qur'aanka in la akhriyo shaytaankii waa eryeysaa wakhaasatan suurat albaqara wa khaasatan aayat alkursiy waata nebigu yidhi calayhi asalaatu wasalaam laa tajcaluu buyuutakum maqaabira ina ashayطaana yanfiru min albeyt aladii tuqra'u fiihi suurat albaqara xadiiska muslim saxiixa kusoo wariyey guryihiinna ha ka yeelina xabaaloo kale ha ka yeelina yani sida xabaaluhu cibaado uga maran yihiin ee salaad uga maran yihiin yani saasoo kale ha ka dhigina mid khaalika ah ee qur'aan akhris uga maran yihiin shaytaanku waa ka cararaa guriga suuratulbaqara lagu akhriyo markaa suuratulbaqara guriga lagu akhriyo shaytaanku waa ka firdhanaya xadiiskana muslim baa saxiixa kusoo wariyey wakadalika aayat alkursiy ruuxa akhriyaa habeenkaas shaytaan uma soo dhowaado waatii xadiis kale ku soo aroortay xagga ilaahayna cid ilaalisa ayaa looga soo diraa marka waxay ka mid tahay yani qur'aankii oo shaytaankii yani markaa eryaya ama sharkiisi baajinaya wey qul huwa laya qul acuudyada saasi laeg yani waxa weeye sharkii wax kastoo shar laa ilaahay laga magan gelayaa sharka shaytaankuna waa ka mid si gaarana waa loo sheegay shaytaanka waa loo tilmaamay adkaaraha ka mid a wata axaadiista ku soo aroortay ruuxa laa ilaha ila allah waxdahu laa shariika lahu lahu lmulku walahu alxamdu yuxyi wa yumiit wa huwa calaa kulli shayin qadiir ruuxa marka waxa weeye yidhaahda 10 goor markaa yidhahda 10 maraat 10 xasanaa loo qoraa 10 dembi baa laga daadiyaa 10 darajaad sare loo qaadaa xagga ilaahayna waa laga ilaaliyaa maalintiisaas wuxuu noqonayaa mid waxa weeye shaytaankii ilaalin kaga sugan ma laga dhowraayo wakadalika xadiis kale waxaa ku soo aroortay 100 goor qofka yidhaahda laa ilaha illa allah waxdahu laa shariika lah ila aakhirih in waxa weeye shaytaankii isagana laga dhowrayo shaytaankii laga dhowrayo waxyaalaha markaa ka eriyey waxaa ka mid a ka baajinaya in waxa weeye adkaaru sabax walmasaa la akhriyo adkaarta subxii iyo adkaarta galabtii ama habeenkii in la akhriyo marka in lagu dadaalo aad bay u fiican tahay sharki shaytaankana qofka waa ka dabaalaysa haddii xataa la ysku dayo sixiro iyo wax la mid ah oo difaacaasi u xidhan yahay oo adkaaru sabax walmasaa akhriyey oo qul huwa allaahu axad qul huwa allaha iyo labada qul acuudu iyo aayatu kursiga uu akhristay acuudu bikalimaati illahi ataamaati min shari ma khalaq bismi illaahi aladii laa yaduru maca ismihi shayun fi alardi walaa fi alsamaa'i huwa asamiicu alcaliim
saddex goor uu yidhi xataa sixirkii lagu kari maayo ya ishii iyo sixirkii iyo shayaaiintii iyo waxba yeeli maayaan intaa hadduu ku yidhahdo bisidqin wayaqiin ya hadduu ku yidhaahdo isagoo ku kalsoon isagoo shakisanayso ni armay kaa celin waayaan hadduu isleeyaho shakisan yaho shaki ku sugan yahay min nafsihi utiya xagga naftiisaa looga yimi ya waayo dee niyadii iyo markaa waxa weeye yaqiintii uu ku qabi lahaabaa ka maqan markanuu isleeyahay armay kuu soo dhaafaan oo shaki ku dhacay dee naftiisa waa daciifta siduu u yidhi markaa sidii anfacaysay ee xoogga lahayd maaha marka waa inuu bisidqin wa yaqiin waa inay ahaataa waa inuu deed marka waxa weye sidaas isagoo si runa oo yaqiina ku yidhi waa inuu marka waxa weyan hadalkii isagoo sidaa ku yidhi waa inuu marka waxa yidhaahdaa marka taasi waxay noqonaysaa mid marka waxa difaac u ah oo ka baajinaysa oo shaytaanku sharkiisii aan waxba yeelaynin aan waxba gaadhsiinaynin ayay markaa noqonaysa adducaau xiinamaa yaqacu maa laa yardaah baabka 4aad adducaau ducada lagu ducaysto xiinamaa yaqacu goortuu dhaco maa laa yardaahu waxaanu raalli ka ahayn markay dhacaan wuxuu odhanayo bay ku ducaysanayn aw guliba calaa amrih ama arrinkiisa laga qaalib noqdo laga gacan sarreeyo muxuu xaaladdaa odhanaya xaaladdaana wuxuu odhanaya qadaru llaahi wamaa shaaa facal kani waa qadarkii ilaahay buu odhanaya wuxuu ilaahay doonana waa sameeyaa xadiiskii macruufkaa baa ku soo arooray almu'min alqawiyu khayrun wa axabu ila allahi min almu'min adaciif muuminka qawiga ah ayaa marka waxa khayr badan ilaahayna marka uu ka jecel yahay muuminka daciifka mid walbana khayr baa ku sugan wa fii kullin khayr mar haddii iimaanka ku jiro oo mid walba uu muumin yahay wuxuu noqonayaa mid walba inuu khayr ku jiro ayuu noqonaya ixris calaa maa yanfacuka wastacin billaah ixris calaa maa yanfacuk ku dadaal waxa ku anfacaya wastacin billahi ilaahay kaalmayso walaa tacjaz ha caajisin walaa tacjizna waa u dabdiyaan walaa tacjiz ha caajisin oo bimacnaa waxa weeye ha wahsanin oo ha awoodi waayin waxaad noqotaa mid nashid ah oo firfircoon wain asaabaka shayun falaa taqul haddii shay ku haleelo ha odhanin low annii facaltu kada wa kada haddaan samayn lahaa saa iyo saas yani saa iyo saasay noqon lahay lakaana kada wa kada ayaa macnuhu dhacay saa iyo saasay noqon lahayd ha odhan walaakin qul qadaru llahi wamaa shaaa facal ha yeeshe waxaad tidhahdaa kani waa qadarkii ilaahay wamaa shaaa facal wuxuu ilaahay doonana waa sameeyaa waxaa kaloo loo dabdiyaa qadara allaahu wamaa shaaa facal ilaahay baa qadaray dheh wamaa shaaa facal wuxuu ilaahay doonana waa sameeyaa ya faina low taftaxu camala ashayطaan waayo low waxay furtaa camalka shayطaanka iyo shaqada shayطaankay furtaa yani waxaa loo jeedaa low oo dhan ma aha waa lowda looga jeedo tamani khilaaf almaqduur ya wixii loo qadaray khilaafkeeda inuu iska tamaniyaayo o iska jeclaysanayo lowda hadduu marka waxa weeye ay tahay mujarad ikhbaar camal shayطaan furi mayso waatuu nebigu yihi sala allahu aleyh wasalam low istaqbaltu min amrii ma stadbartu lamaa suqtu lhadya waa mujarad ikhbaar buu nebigu uga jeeda hadday tahay marka waxa weye low uu marka waxa weeye khayr ku tamaniyaayo iyadana waxa weeye waxba dhibi kuma sugnaa laakiin taxasur uu ka tiiraanyoonayo oo isku cilkaambiyayo wixii dhacay oo uu tamaniyaayo khilaafkeeda inay dhacdo waxa weeye taasaa waxay noqonaysaa yani mid waxa weye camalkii shayطaan ka furaysa ayay noqonaysaa yani waxa weye lowda waxay ku sugan tahay qur'aanka iyadoo marna munaafiqiintu isticmaalayaan marna waxa weye ilaahay sheegaya low kuntum fii buyuutikum labaraza aladiina kutiba calayhim alqatlu ila madaajicihim marka waxa weye calaa kulli xaal siduu markaa jeclaa si aan ahayn hadday dhacdo ama laga qaalib noqdo wuxuu markaa xujaysanaya qadarka dadka qaar waxay itlaaqaan qadarka lama xujaysto laakiin sawaabku waxay tahay tafsiil alqadru yuxtaju bihi cala almasaa'ib laa cala almacaayib ahlucilmiga qaarkood waxay ahaan qadarka waa loo xujaystaa waxyaalaha musiibooyinka ah laakiin waxyaalaha ceebaha iyo dembiyada ah qadar looma xujaysto lakiin wixii